Soomaaliyeed ku haysa iyo degmada Maxaasba arrintaasna arrin culeyskeeda la waay laakiin waxaa nooga qorshaysan aniga in aan dib ugu soo celinno haddana gacanta dawladda iyo gacanta bulshadeennaba si ay uga xoreyno qolyahan al-shabaab dhibaatooyinka ku haya bulshada iyo uga qabsaday meeshii aan uga xoreyno waqtiyaal dhow insha Allah. marka way jiraan wax dhaqaalaha sameeyay horena u sameeyay haddana sameeyay waxaa jira sidoo kale isku dayaan markii qabsadeen deegaanka isku dayaan inay dhacaan xoolihii dadkii shacabkii ay naftooda dhibaateeyaan sidoo kale meelo badan waxaa jira tuulooyin deegaanka muuqdo hoos yimaado oo ka hor istaagnay oo ciidamo ay jiraan in isku dayaan in xoolaha laakiin laga hor istaagay isu tigiyaysi ayadana oo kurina waxaan isku dayaynaa oo shaysan in aan dib uga xoreyno dhaqdhaqaaq hadda howlgal aan ku jirno hadda waqtigan inaan dib aan uga xoreyno sida wararka deegaanka laga soo gaaray sheegayaan al-shabaab markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka soo baxeen waxay ka qabteen dad lagu tuunsan yahay inay la shaqeynayeen ciidamada dowladda sida ay ku eedeeyeen maxaad kala socotay idinka maamul ahaan runtii way jiraan dad ay qabteen laakiin ma ahan dad dowladda la shaqeeya ma wax dowladda shaqo kulma ma waxay xireen dadkii shacabka ahaa dadkii masaakiinta ah meeshii joogay ugu yimaadeen ciday rabaan iska soo xirteen ciday rabaan iska qabsadeen hadda wiilgooda dadka xiri jiraan ee dad waxay leeyihiin madax furashan ka rabnaa lacag baadahan ka rabnaa dad waxay leeyihiin xoolaha keen geelkeen ari keen iyo xoolo iska xukumeen waxban aan ka galabsan horena aan xabo uga qabsan marka waxay ka dhimid tahay dhibaatooyinka lagu yaqiinay ku dhibi jireen bulshada ay ku dhibi jireen ayadana insha Allah waxaan rajaynaynaa in waqti dhow dhibaatadaas aan ka qaadi doono ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo gaar ahaan ummadda reer Muqdisho ee deegaanka degmada Maxaas haysto